حنت وحا كينتو وحاوي لحداس أرنا كينتو لحداس أرن هدان لدقالن إن شاء الله تعالى حنت ونغتيجيسا لحدا أرن وحنت كينت أي أوجد بإنتان أوجد بين دبعتي كيني سو حنتاس لحدا حرن أرنا هالمركوس وعنا قفل بلحداس أرن كفكر إسكان إلى كو وضعف الإيمان قفك دبعت حن محا كينتو قف حمنا دارتي لحدا متكمد أما لحدا هايسو أما متكمد هايسو كو إيمان كيسا ضعيف قفكاس وحو باهي إيمان كيسو إنو كشقي وباهي laba qofka meeshu ku soo koray ama bi'adu ku soo koray tarbiixan uu soo qaatay yaraantiisu ku soo qaatay ama asxaabka ka soo qaatay ama familkiisa ka soo qaato saddex qofkaas waqtiga ka batay waqtigu meel uu geeyay ilaahay waqtigiisu dad siinayo oo waqti meel uu geeyay ama dadka fadhi ku dirarka fadhiya fiir meelaha badi lagu xanta maxaa fadhi ku dirarka waa marka hore waxa la yiri dumarka xan kaliya macaleesha dumarka marka hore guriga ay joogi jireen hadda ragga soo gasho fadhi ku dirarka la fariista ay la soo gashay tan afraad waxa irdaa al-aakhiriin qofka wuxuu qofka muxamana qofka saaxiibkiisa inuu raali geliyo tan shanaadna waxa qofkaas waa qof jaahil oo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam aqoon u baahan inuu barto tan lixaadna waxa waaye qof waxamana hadarat waa xaasid xaquud ah waaye oo qiimo badan aan lahayn xaasidkana waxa ugu hooseeyo uu sameeyo waxa ilaahu wuxuu ku leeyahay ilaahu caadil mateed qofkaana waxa siisay wuxuusan istaahil oo aniga aan istaahila siisay waxa ugu hooseeyo sameeyo qofkaas waa aakhiradiisa iyo amalkiisa ugu baysa taas waa meel kale bataalaba qofka marka lixdaas arin ayaa keento inuu qofka xanta keeno dhibaatada keenta maxaa waay marka qof haduu qof kala xanto dhiba waxyaalaha keena waa taas laakiin dhibaato qofka xan meesh kara dhibaatada dhacda maxay tahay ko waxa iimaanaya waxa waaye dadkii labadii meeshii fadhigii lagu kala fadhiyay in la kala xanaago fadhigii in la kala shakiyo لأنه واحد عرفت من نقل إليك نقل عنك قفكي كوك يانو وكا قاضا هادو ما أنت قف هذا الكوك يانو قف كلا كاغش يغو معناه عدنا وكاسي قاضا هادو ما أنت قف كوكو حانتو برنا أدينا قف كلو كوكو حمانا يعني ماشي لبك كوبادو إيمانا وحاودتكي أصحاب تأها isjeclaa meel wada joogay inuu dhibaato dhex yimaado ay kala tagaan waxyaalaha ugu xunna waaye diinteena waxay ilaalisaa ukhuwada wada jooga walaaltinimada wada shaqaynta ayay ilaalisaa xanta waxay keenay marka wixii dhamo diinta principle-ku ahaayo ku taagneed ayay burburinaysaa dadka inay kala kaxayso la kala shakiyo shir lisugu imaawaaye lis dagaalo ayay keenaysaa bal ila xad waxa laga yaabaa inay gaarto ama dacwo gaarto ama dilitaan ay gaarto laga yaabaa xantaas bilowgeeda ay keenaysaa marka dhibaatadaas waa dhibaato aad u xun waaye ما وحي فسادين نساء مركب مجلسكي يوناجي يقروح تدك جوجي أي كفسادين نساء كان لبعضه آتك وحن قف كله بهين وسكيلات وحاول تحبط الأعمال عمل كاجي دم يكابر برونيسة ما أنت دن وسوميسي وصلاديسي قرآن أقرسنيسي حجة تكتي عمرة تكتي واصدق يستي وحول بو ناقا سميسي مركا حمتد معنى وحا ديار أتهي xoolahaagii aashaqaysatay inaad dad kala siisid nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri atadruuna man al-muflis qofka mufliska ma taqaanaan muflis man la dirham lahu wala dinar markaasuu yiri ma ahan mufliska qofan dinar iyo dirham aan haysanin ma ahan mufliska qofka bankruptiga oo faqiirka oo lacag la'aanta oo xoolo la'aanta waxa waa ceerta aakhara qofka iimaanaya asigoo wata buurar ajir wata katihama buurar tihama oo ku taala xuduudka Yemen ee ku taala ayuu sheegay buurahaas dheer buuracado dheer waa buur aad u tiro badan oo isku xigxigaan waa buurahaas oo kale ajiro wata laakiin markuu aakhir ilaahay hortiisa yimaado maxaa dhacayso kanuu xantay kanuu dilay kanuu xoolihiisa qaatay kanuu wax ka sheegay qofkii marka buurihii watay waa laga qaadaa tartiib ilaahu ninka maalin oo xanta amalkiisa ka soo qaat buurihii ajirka uu watay ninkan waa la wada qoni waa la wada qaatay كديب دتك لها هذا إيمانه مركز وحول الله سان يقسمي إله سبحانه وتعالى وحول الله مركز نينكي أجر ما هيسته مية ما هيسته وكذا ما أجر كيس ده لسي إذا وحول الله نينك كلا وحش يجنا أو دم بيجي سالك سوق هذا نينكي الله صار نينكي بورها أجر كوتي وحول الله تجا بورر دم بيولا قال سيدو نارتك وقلا إذا حنت وحيسميني سمرك وحوا أعماش هذه وناكسنا أي كابر بورنيسا بعض السلف وحيديه جيرين هدان قف حمانا اي والدك يا حمانا هدان قف وحكا شيغا اي والدك يا وحكا شيغا ادي ايغا اجركيغا حق له هبل هدان بو قف وحكا شيغا اي اجركيغا او اوغلاه انان سي مالنت قيامه والدكيغا اي حق بدن والدكيغا سينا ايو ديه جيرين اذا waxa waaye qofka amalkiisa inay burburinaysa ha ogaado tan saddexaad waxa waaye dhibaatadii keenaysa labadaas adduunyadii ku keentay inay majliskii fasaadiso
maxay kaloo keenaysaa waxay kaloo keenaysaa waxaa waaye laba aakhara ku saabsan qabrigaaga in lagu cadaabo ghiiba qofkaas maxana xamato wax ka sheegtay soo maahan qofkii rasuul sallallahu alayhi wasallam maalmaha ka mid ayuu yimid qabrigu yimid markaasuu arkay nimankan waa la cadaaboyo labada meesha ku jirto wax weynna laguma cadaaboyo culimadu waxay dhahaan wax weyn dadka way yareystaan markuu qofku wax ka sheegayo xamanayo waxaa waaye ama qofku inuu hadal ka qaado qof kale u geena way la yar tahay laakiin ilaahay agtiisa waa cinda allahi cadiim waa qofka waa yar tahay maxaa waa qofkiina waxaa waaye xanuu samayn jiray dadku wax isugu geegeyn jiray dadku wax u kala qaadi jiray taasna waxaa waaye marka dhibaatada labada dhibaato adduunyada ku keenayso waxaa waaye majliskiina inay burburiso dadkii kala dhaqaaliso camalkaagii aa shaqaysanaysa dhanna inay burburiso qabriga cadaab inay kuu keento waxaa taas kasii daran aakhara markii la gaaro tan dhibaatada afraad ay kuu keenayso waxaa waaye tahwi saaxibaha ila annaar walciyaadu billah qofka waxaa laga yaabaa inay naar ku gasho haduusan ilaahay aaga toobad keenin oonan la cafinin laga dhibkaas inay u keento idan waxaa walaalayaal aan iska ilaalina xantaan aan iska ilaalina dhibaatooyinkeeda way badan tahay dadka inay ku nacaana imaanayso dadkii adiga shakhsi ahaan oo xanta wada in la naco kiyaa soo socdo oo hadalka qaadi jiray mawduuca aan bedelno tiyaa soo socoto hadalka qaadi jirtay ee mawduuca aan bedelno intaasaa ceeb kugu filan inay dadka asxaabtaada markaa adiga timaadid ee caleeshaankaaga sheekada u bedelaan qof walba kaa sheekeeya lu yiraahdo ninkaa naga ilaali ama qoftaa naga ilaali dadkii kale xataa dembi gelinaysa waxaa ku qasbaysaa dadkii kale xataa inay kusii xantaanaa ku qasbaysaa marka dhibaatadaa samayna qofka xamanaya ama xanta ka qaadaya ama been ama hadalka gudbinayo dembigiisa asiga xataa kuma eko dad kale uu sii gudbinayo waa dembiga qofka haddaba adig kuu egyahayba inuu ilaahay kuu dhaafaa laga yaabaa laakiin dad kale ayaa sii fasahaadinaysa dad kale ayaa dhib kale usii keenaysa dhibaatadaasna waa dhibaataday keento dhibaato adduunye ah adiga majliskii dadkii isjeclaa walaalaha ahaa fadhigiisu ma inaad kala kaxaysid adigii inaad noqotid qof xun oo qof walba kaa carara noqotid dhibaatooyinkii kuu keenaysa aakharana waxaa waaye camalkaaga inuu burburo qabriga in lagu cadaabo naar jahannam in asaas ku gashay laga yaaba shantaas dhibaatana waxay keentaa waxaa waaye xanta ayaa keento ee haliska ilaali dhibaatooyinkaas ayay keentaa cilaajkeeda maxaa waaye marka qaybta saddexaad oo u dambaysa usoo gudbayna waxaa waaye maxaa cilaajo maadaama ogaana waxyaalaha keeno aan ogaan lixda arrin keento dhibaataday samayso shanta arrin dhibaato ay samayso cilaajkeeda maxaa waaye maxaa cilaaj ugu hore cilaajka laba qayb cilaaj aday shakhsi aad samaynaysid iyo cilaaj waxaa waa community ahaan cilaajka koowaad loo baahan yahay inaad samaysid waxaa waa asxaabtaada bedel asxaab wanaagsan samayso asxaabta markaa rabta inaad qof kale ku xamatid kuu quslaysa kuu dhagaysanaysa ka tag asxaab waxaa raadsataa markaa wax sheeti ku dhaho hebel ama heblo iska ilaali waxaan laguguma talagelin ceeb waaye camalkaaguu burburina asxaab ku dhehaysa raadso ninkii 99 qofood dilay u yimid qofkii boqolaad u yimid yiri tooba ma leedihid ku dhahay yiri number iga dhana boqolkiiba ku dhameystiray kadib haddana raadsaday wuxuu ku yiri toobada adiga ilaahay wax idin ka hor istaagay mar laakiin baladkay ka baxo waa balad suu waaye waa balad xun waaye ka bax لأن بلد 99 qofood aad ku dishay oo gacanta ku qaban waaye asxaab xun waaye ka bax meel kala tag meeshaas tago meeshaas dad wanaagsan joogo marka waxaa loo baahan yahay qofka inuu iska ilaaliyo asxaabta xun asxaabtaas oo xanta kula shaqaynaysana ka tago asxaab fiican raadso tan labaad oo loo baahan yahay adiga shakhsi ahaan inaad aga shaqaysid waxaa waaye inshigaal bidikrillah dhibaatada keenta maxaa waayaan dhahnay waxaa keena waxaa waaye فراغ صوميهن محاكينا فراغ هايسي وحا كبوحي سا ذكرك كبوحي لا إله إلا الله كبوحي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كبوحي أذكارت كبوحي أو لهيسد إلهي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أذكارت صلاة كبوحي صلاة الصبح كدب أذكارت إذا أقرسوا قفك وحا أركي صلاة مركو سلام عليكم كرهو إسلام مركي وإستاغا وبحا ميلو وصعد متقاني وإستاغا بنانك وإستاغا محاوى شيطانك مرة وينا كستاز جوتي لأن محاكو جرت حفظي الدنيا آخراكو جرت هذا صلاة دا إزام بالأسوق هذا صلاة مركا كبحدي مركز سلام عليكم ترى حدا ماشي في ريست سدح مر استغفر الله تراهد صدني سدح مر سبحان الله اتراهد صدني سدح مرنا الحمد لله اتراهد صدني سدح مرنا الله اكبر اتراهد لا اله الا الله اكو جبجبيس دنبيغا waa lagu dhaafaa
تاستي آخر واي الدنيا محاكو هيليسا رسولك صلى الله عليه وسلم وحونو شيغي قفكي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير صلاة الصبح كذب إيه صلاة المغرب كذب طبعا مرده إن وحل بلغ إلى لنا dadkii waxa arkaysa qof wala wada cabaada ma garanay zamankan ma wixii soobat waa fahmi way qof walbo masaajidkan joogo maalin walba 10 qofood ka badanaa timaado dumar ba u badnaadaan waa xanuunsanahay ma garanay waxa haay dhakhtarantay wax waa liigu soo sheegi waay shaytaankii ma dadkii ku batay jinnigii ma soo batay ma dadkii dacwada iyo diinta ka fogaadeen ma waa ilaa hadda waa fahmi lahay maalin walba qof baa khaas loo sameeyay khair allah si maalintii ugu yarta 10 qofood quraan lagu aqrina qofkii dad lagu aqrinayo waayaba maxaa dhacay dadkii markaas u fiirisno xawaa dhikriga ilaaha laga sii fogoonayo wal jazaa'u min jinsi al-amal hadaa ka fogaat wixii ku ilaali lahaa hadaa iska ilaalisay dad mesela booliiska fiir wuxuu wataa geedo soo xirana maxaa dhacay bistooladii ku soo tuura ka difaacdo adiga ibn aadan subaxi waa soo kacday su'aalan ku weydiiyo waa soo kacday waa soo baxday maxaa xijaab soo qaadatay maxaa isku asturaysa xabadkaaga banaanka soo dhigta qof walba markuu kula heli kara marka guriga ka soo bixis adkaarti ma aqrisid oo ku ilaalinaysa bismillaah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah deeysi oo shaytaanka laga ilaalina wax walba laga kaafina ma tiri ma yaani macnaheedu waxa diyaar waxa wax walba inay kugu dhacaan diyaar u tahay marka subaxi salaad subax marka saaka tukanaysa adkaarti ma aqrisatay maya okay marka bixaysi marka maghribtu maseexatay waxa laga qof markuu guriga soo bax telefoona dhagta ugu jirtabo ama telefoona ninka dhagta uu ku haysta salaamu alaykum waxa laga yaari tadu khayr sheegi laha hadal ma la yaani inuu sheego ama inuu qof xamanaya laga yaabo gurigiisana uu ka soo wacay oo ka soo baxay waqtigii loo baahnaa inuu dhikriga ku mashquulo ayuu wax kale ku mashquulsan yahay wal jazaa'u min jinsi al-amal adduunyada dhibaato ku dhacday aakhirana waa kaga sii darantahay markaas idan waxa loo baahan qofka inuu ku mashquulo dhikriga ku mashquul ذكري إلهي كمشغول نينا يا رسول الله يدر دارا محاوى عملك ووفي عن سمي كرو لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عرب كاغا حكقوينا ذكري إلهي مركز ذكري إلهي شيء عرب كاغا مركز حكقوينا هذا إذن وحلو باهي قفك إنه كن مشغول ذكري إلهي كمشغول تنكوبات وحان رهني علاجك حنت يدبك أو كينيس وحاوى تنكوبات إنه أصحاب وناكسن راسده طلبات أو دبات أو حافظ داود اللبات لأن داود حتى قروينا داود اللبات حنتك إلى الناس وحاوى وقت إنه كن مشغول يسد ذكري إلهي كن مشغول يسد تنسدحات وحيالها كان وحا كمد وحان رهني حسد كواية حسد سأجاب بحد اقتنع بما أعطاك الله وحو إلهي كسي كقنع وحو إلهي كسي الحمد لله ده لئن شكرتم لأزيدنكم إلهي سبحانه وتعالى وكو درا مرك وحو إلهي كسي كقنع الحمد لله ده حسدك أنت قف كان حسد لهاد أو وحد كشيء لهاد وحا كشيء وحا سميسا وحو إلهي كسي الحمد لله ده تكاهو سيفيري قفتان وكاكو الرئيس هفيرين قفتان نينك يضع فيعن قفتان بابور فيعني هيستا قفتان قرو فيعني هيستا قفتان وحالها شقة فيعني هيستا قفتان جامعة دي كصوبح دي قفتان البه هذا بار قفتان سيدو كالوائقة فيعني هي جامعة داسو كصوبح الحمد لله هذا فضل يؤتيه من يشاء يكودي إذا أديك ناس ميستين ددال قفتان جهدي وكوغاري أديك ددال جهدي وكوغاري وكالا كوغار إلهي نويديسون وكاغبادي إذن داود السدح هذا وحنتك إلى الناس وحاواي ارضى بما قسم الله لك إلهي وحو كسي رالي كل نقو لأن الإباتي كينيس وحاكمة دين وقفك وحسد إيه نقطه فراقة إيه نقطه تن أفراد وحاواي وحاكينا جهلا كين تسوما علمي كبدل علمي مركا قفك أوبرت علمي قبرت أويراه رسولك صلى الله عليه وسلم محوير أتدرون من الغيب ما الغيبة ذكرك أخاك بما يكره إذن قف كان هذا كان كالشيء هدو لبسنا واسك إلالنا قفك مركو علميgaas barto haduu kala barto yiraahdo rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu aakhira waxa iimaanay muflis la marbi inaan noqdo aniga laan cilmiga celinay markaas qofkan cilmiga marka waxa waa jahliga keenay oo basidkiisa ka badbaadinay waxa marka inay cilmi baratid ayaa loo baahan yahay tan oo dhibaatooyinka keentay waxaan dhahnay qofkan sunnada nabiga inuu ka tagay tamassak bi sunnati nabi sallallahu alayhi wasallam sunnada nabi sallallahu alayhi wasallam qabso sunnada nabi sallallahu alayhi wasallam muxuu sameyn jiray qof waligiis ma xanti maya waligiis ma xaman idan nabigana waa jeclahay inaan ku daydaan raba dadna waa xamana si isu keenaysa billahi alayk adeega ka jawaab su'aashaas isma keenayso tan shanaad waxa waaye qofka inuu ku mashquulo naftiisa u ducooyo duco ilaahay subhanahu wa ta'ala weydiiso ilaahu waxa tiraaha isi wax wanaagsan ilaahu carab kan oo iisiisay oo afkiga ku jiro labadii furu dhaxdooda ku jiro waa hub aan daaleynin waay maanta dhan wuu hadlaa qofka wax yar haduu carabka qalbiga hadii lagu shadana meeshu ka sii bilaaba cuduu kasta waa daala indhaha saada maanta wax fiinis indhaha waa daala ina siixatida rabtaa
maskaxda way daalaysa si uu fikiraysa inaa sii xatidaaltaa gacman kadaa wax ka qabanaysid way daalaayeen dhagaha maantana ad wax kuu jiro waa iska siibaysaa marka dambe waxaa waa daalay haddaa maantana socotid waa daalay laakiin carabka usoo noqo ma daalay maantana wuu hadlaale babababadaas khayr iyo shar uu ku hadlaa idan ilaahay weydiiso waxaa tiri ilaahu geedkan aan daalayni oo aan haysto ilaahayow ila garab qabo ilaahayow ka ilaali xumaanta iyo beenta ka ilaali oo waxaa ka dhigtaa carab runta sheego khayrka sheego dadka khayrkooda sheega xantana ka ilaali marka ilaahay subxaana wa tacaala weydiiso khayrka weydiiso idan waxaa loo baahan qofka hadaa waxa hubka ugu weyna haysano walaalayaal taas waa wallaahi ducada anaga badleen waxaa laga waxyaalo kale aan ku mashquulin ducada waa hub aan dhammaanaynin hub aan laga adkaanaynin waa hub oo ilaahay ku siiyey oo free haddana oo isticmaali kartid oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku siiyey waa hub xoog badan waay ilaahay hubuu ku siiyey oo aad xoog badan wax horu istaagi kara haba yaraatee ma jirto ducadana qofka waxaa loo baahan inuu ku mashquulo ilaahay ka magan galo wax kastoo xun ayaa loo baahan yahay idan walaalayaal xanta waxaan sheegnay waxaan dhahnay xanta haddaan tacriifin hal mar waa soo summarize garayna xanta haddaan tacriifin waxaa qofka walaalka inaa ka sheegtid wuxuu dhibsado waxay rabta ha noqoto waxay rabta ha noqoto ama qabiil ha noqoto ama kalarkiisa ha noqoto ama sizekiisa ha noqoto waa gaaban yahay waa dheer yahay caatawa waa cayilan yahay reehebel waa reehebla waaye waa cad yahay waa mid waxay rabta ha noqoto qofka wax dhibsanaya ka da taas number 1 hadaa ka diin weyso qofkaas waa xamad xataa hadaa hortiisa ka tiraahayd waa xamato qoftaas taas number 1 tacriifi taas waa dhibaatooyinka keeno lix waa dhahnay tan ugu horeyso waxaana qofka iimaankiisu daciif tan labaad waxa waa tarbiya qofka inuu meel bii'a xun oo ku soo tarbiyoobay tan saddexaadna waxaan dhahay waxa waay qofkan inuu waqti dhumis ay tahay tan afaraadna waxa waay inuu qof kale raali gelinayo u sameeyna tan shanaad waa jahli sunnada nabi sallallahu alayhi wasallam isna ogin tan lixaadna waxa waa xasad ka keento حسد يحقدها كينا دبعتو كينا محاواي شن أرنا شن دبعتو كينا لبا أديك الدنيا كو كينا فسهات إنا فسهاتك ولا عليه وذي جوج إستجعل إنا كلا قاضي إيوه أديك إن لو النقاع كينتي آخرنا عمل كاي إنه بربرو عذاب القبر نار جهنم والعياذ بالله شن تاسنا وحالا إنه أديك إنه كو كينا دبعتو كينا على داود يسمى واي صاحب ونكسن إنا سميستي تاس نمبر 1 واي طلب ذكر إلى إنه كم مشكوشد وعرب كا ما دام فراقة ذكر أكو مشكوشد تنسد حسد كنا إسكالات وقناعة أكو سميست تن أفراد وحواي إنا علم برتت وجهلي أكسو بحثت شنات دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنا كم مشكوشد دي علم وسو إيمان كأكر أسوكا تن لحاد إنا إلهي سبحانه وتعالى ويدي ستت إنه قف وناكسن كاديغو عملك وناكسن وكوف ضد خيرك الدنيا آخرة وكوف ضد intaasna ilaahay sadaa sameeyay kaaga badbaadina insha Allah taala ilaahay subhanahu wa taala dambigeena ha dhaafo iyo dambiga waalidkeena xantana aan iska ilaalino waxa ugu xun oo qofka uu sameyn karo waxa waa amalka ku daaleysay ina aakhira qofka ka qaato rasuul sallallahu alayhi wasallam markuu ka sheekeynay akhlaaqda wanaagsan qofkan meel fiican inuu ku tagaayo qofka waxa laga yaabaa amal badan inuu sameeyay laakiin carabkiisu dadka ka haysta idan qofkaas waa liibaanay dhibaato badan ma haysato wax kasto ilaahay ka gashid waxa laga inuu ilaahay ku cafiyo laakiin ibn aadan hadaa wax yar ka qaadatid dollar hadaa ka qaadatid ku talagal aakhiro tilaabo ma qaadays ilaa qofkaas uu ku yimaado toolarkiisa ka qaato waxa laga yaabaa dadka ugu horeeyo lagu xisay meel kama dhaqaaqays ilaa qofkii la soo xisaabo uu ku yimaado qofkan waxa la qofka ugu dambeeyo la soo xisaabayo inuu yahay laga yaaba meesha suus ilaa qofkaas bal nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay qofka ugu sareey aakhira meesha gala shahiidka inuu jannada galin ilaa qofkii kale oo diinta uu kulaha uu siiyo saasi marka xanta u xunta ibn aadam wixiisa qashin waaye wasakh waaye iska ilaali inta iska ilaali kartid khayr Allah ku siiyo carabkeena aan ka ilaalin xumaanta dambigeena Allah dhaafo maalinta isniin soo socotana soonkeeda ha lagu dadaalo jazaakum Allah khayran barakallahu fiikum ilaahi subhanahu wa ta'ala idin wada xifdiyo insha Allah intaasaan ku keenaa maanta muhaadarada barakallahu fiikum